بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كره مركل سكان سعلي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله، شكر لله. soo dhawaad walaalaha qaaliga dhamaantii waan salaamaya meel kastoo caalamka igala socotaan. Ilaa subxaanahu wa tacaala dembiyadeena iyo dembiyada waalidiinteena ha dhaafo, inta xanuunsan allaha caafiyo, inta murugaysan murugta allah ka dulqaado, inta muraadkooda khayr allaha siiyo, inta dhimantayna allah u naxariisto, qabriyada ha waasiciyo. aamiin yaa rabbi. soo dhawaada axbaabi fillah. maalinteena iyo habeenkeena kuwa khayr qaba allah inooga dhigo, kuwa cibaado qurux badan la yimaada allah naga dhigo, kuwa in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaha allah naga dhigo. aamiin axbaabi fillah. maanta waa maalin jimca, waa maalintii la salaami jiray xabiibka sallallahu alayhi wasallam. in badan aan ku salinay nabiga calayhi salaatu wasalaam. sidoo kale nuurka labada wiig suuratul kahfi akhriso maalintii jimcada ha hilmaamin suuratul kahfi si aad u heshid nuurka labada wiig u dhaxeeya. nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inuu qofka suuratul kahfi akhrista uu helayo nuurka labada wiig u dhaxeeya. sidoo kale axbaabi fillah, maalinta jimcada waxaa ku jira saacad ijaabo aan ducada la soo celinayn. sideeba uga faa'iideystaa bay walaalo way soo weydiiyaa. walaalkii yaqaano wuu yaqaanaa, walaalkan aqoon axbaabi fillah ka faa'iideysto. maalinta jimcada axbaabi fillah saacatul ijaabada inta ugu badan axaadiisna way ku soo arooray, culimadu waxay ku tilmaamaan bacda alcasr. bacda alcasr marka oo dhan ma fadhin kara, hadday tahay saacadda u dambaysa inta xisaabtatid adiga wadanka joogtid saacadda u dambaysa qoraxdu dhacayso, markaas ilaahay subxaana wa tacaala u tag. marka ilaahay subxaana wa tacaala sidee ugu tagaysaa? horta kow maalintaas oo dhan waa maalin khayr, waa inaad maxaa soo akhridaa suuratul kahfi, waa ina in badan nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo salidaa. markaad tagto marka saligii aad rabtay inaad ducaysato maxaa lagaaga baahaya? aadaabu ducaa axbaabi fillah in badan ayaan kasoo hadlay, oo ducada aadaab bay leedahay. channelka way ku jirtaa marar badan ayaan kasoo hadlay. insha allah haddana waan dul marayaa maadaama video yar aan sameynayo. insha allah walaalaha u baahan mar kale ayaan haddana kusoo celinaya aadaabu ducaa. walaalaha qaaliga marka ilaahay u tagaysid horta waxaa la tagaa meel degan oo buuq lahayn. raggu masaajida oo kale ama guriga, gabadhu qolkeeday soo xiran kartaa, meelaan buuq lahayn baa tegaysaa axbaabi fillah. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad gacmaha u horsanaysaa. macnihii buuqa axbaabi fillah ma ahan khasab ma ahan, laakiin macnihii meel qalbigaagii soo xaadirayo. waxaa rabaa inaad qalbigaagii soo xaadirisid oo mashquul kale uusan ku furnayn. xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa lama aqbalayo qalbi qaa'ib, qalbi maqan lama aqbalayo. marka qalbigaaga inaad soo xaadiriso ayaa muhiim ah. kadib markaad ducaysanaysid ducadaada waxaad ka hormarinaysaa ilaahay ammaantiisa iyo nebiga salligiisa. nabiga ayaa salaamaysaa, ilaahayna waad amaanaysaa. sidee marka ilaahay u amaana? ilaahay waxau amaanaysaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar. subxaana allah walxamdulilah waa dhihi kadhaa, subxaana allah bas baa ku gaabsan kadhaa. waxaad ku salinaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. kadib waxaad ku ducaysanaysaa ducooyin aakhiradaada, cibaadadaada baad ka hormarinaysaa. kadib islaamka ayaa u ducaynaysaa, kadib ayaa adiga ducaysanaysaa. marka adiga ducaysanaysid waxaa lagaaga baahan yahay si saxa, si aad qofka hor fadhiya ugu sheekeynaysid inaad arrimahaaga mid ilaahay subxaana wataala ugu sheegto. ilaahay wuu kaa ogyahay, waa calaamul quyuub, laakiin mid baa ugu sheegay. ilaahay wuxuu dhahay ibarya waa idinka ajiba. ilaahay wuxuu dhahay axwaashaada inaad u sheegto, ilaahu midaasaa iga, ilaahu arrintaa kalaasaa iga, ilaahu arrintaa mid ilaahay ugu sheego subxaanahu wa tacaala axbaabi fillah. xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ilaahay haddaadan adigu arkayn asaga ayaa ku arkay. qalbigaaga waxaad kusoo xaadirisaa raxmaanu raxiim inaad hortiisa fadhidid. ilaaha khaaliqa rasaaqa ee khasnadihiisa buuxan inaad hor fadhido ay waxba la ahayn ilaahay subxaana wa tacaala. kun fayakun inuu arrin waxyaalahaaga yaryarka aad weydiisanaysid oo ilaahay kuu dho inaan waxba la ahayn arrinka kusoo xaadiri. ilaahayna malo wanaagsan ka qab, yaqiinna la imo, qalbigaaga ha ka buuxdo. ilaahay waa mujiib, wuu ku ajiibayaa. xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ahaa ilaahay waa xayiilu kariim, ilaahay waa mid xishooda oo kariima oo deeqsiya. addoomihiisa gacmaha u horsana ilaahay wuu ka xishoodaa oo gacmaha oo maran kuma soo celi ilaahay subxaanahu wa tacaala. taas qalbigaaga ka buuxi ilaahay subxaanahu wa tacaala. markaa aad dhammaysato ducadaadana haddana sidii oo kalea lagaa rabaa inaa ilaahay ammaantiisii kusoo celisid, saliga nabigana kusoo celisid axbaabi fillah. sidaasaa lagaaga baahan yahay. saase ducada
ducadaadu mustajaabo ku noqonaysaa. Duco xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku xusan nin ducaystay oo ilaahayna aanan amaanin nabigana aanan ku sallin inuu nabigu dhahay cajala haada kan waa degdegay. marka mustajaabo kuma noqonaysa labadaa hadday ka maran yihiin oo yaqiintiina ka maran tahay mustajaabo kuma noqonaysa ducadaada. intaa waa inaad ku darta axbaabi fillah. waa qisaskii saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saacatul ijaabada axbaabi fillah aan kasoo diyaariyey qaybtii labaad oo saacatul ijaabada walaalaha ilaahi subxaana watacaala ducooyinkooda uu aqbalay aan kasoo diyaariyey. ka faa'iideysta walaalaha kalena usii gudbiya leegtana saara walaalaha qaali si walaalo badan u gaaro uga faa'iideystaan khayrka. qisada koobaad axbaabi gabar baa ka sheekeynaysa axbaabi fillah. gabadhan waxay tiri wiil baan la sheekeysan jiray bay tiri, kadib waxay tiraahday waan jeclaaday bay tiri wiilkii, kadibna wuu idulmay bay tiri, wuuna iga tegay bay tiri markuu idulmiyey, anigana waan jeclaa bay tiri kamaanan maarmayn, qalbigaygana aad ayaan isku siiyey bay tiri markaan arkay bay tiri arrinka meeshuu marayo. weliba waxay tiraahday aan u sheegay bay tiraahday ehelkii waalidkay aan ku ilaa wiil baa isoo doonaya. sidoo kale waxay tiri asxaabteydii ay ogyihiin ayaa waxay tiraahday arrinkaasna aad iigu cuslaaday bay tiraahday, waan murugooday, waan fakaray, arrinkaygu u cuslaa. waxay tiraahday ilaahay xaggiisa baan u cararay bay tiri, ilaahay baan u bandhigtay arrinkayga, qiyaamuleylkii ayaan soo kacay, in badan baa ilaahay baryay, saliga nabiga iyo istikfaarta iyo xawqalada ayaan aad u badiyey bay tiri. ducada waxay tiraahday maalinta saacadda u dambeysa maalinta jamcada saacatul ijaabada ayaan aad ilaahay u baryay, wax walba ayaan ilaahay u sheegtay bay tiri, si qalbiyan ayaa ilaahay ugu sheegtay. alxamdulilah jamcadii markaan ducaystay bay tiraahday waan seexday habeenkii sabtida soo galaysay, waxaan ku riyooday bay tiri wiilkii aan jeclaa oo isoo doontay oo aan midownay ayaan ku riyooday bay tiri. alxamdulilah wiilkii wuu iisoo noqday bay tiraahday, ilaahay waxba kuma cuslee. waxaa dhacday bay tiri inaa anigii asagii aan waxay tiraahday ilaahay qulubtaydii mideeyey, sidii baana noqotay bay tiri, aan ku riyooday oo ilaahay subxaanahu watacaala wuuna mideeyey, ilaahay subxaanahu watacaala qalbigay isku soo jeediyey, ilaahay subxaanahu watacaala wiilkii wuu ii saqiray, wuu ii soo jeediyey, ilaahay subxaanahu watacaalana wuxuu naga dhigay qoys islaam ah, sidii ayuuna qoyskay ku dhismay bay tiri. ilaahay xaggiisa waxba kuma cuslaa, ma jiraan bay tiri ilaahay xaggiisa wax ku culus, arrinkayaga ilaahay baa u bandhigtay bay tiri, arrinkayga ilaahay baa u bandhigtay, ilaahayna kun fayakun buu ii yiri bay tiri. ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadda iskale. qisada labaad axbaabi fillah wiil baa ka sheekeeyey. wiilkan wuxuu yidhaahday waxaan ku noolahay wadanka khaliijka, wadamada khaliijka wadan kamid a, waxaan ahaa wuu yiri macalin dhiga luuqada ingiliishka, lacagta mushaarka wuxuu yiri aad ba igu yarayd buu dhahay, wadankana umaana dhalan, waxaan ahay buu dhahay shaqsi ehlu dikri ah. markaan wuxuu yidhaahday warwaray oo aad aan mushaarki yaraa oo waxba aana ii tarayn aan arkay buu dhahay, aan warwaray, aanan shaqo kala raadiye aan waaye buu dhahay, ayaan warwaray buu dhahay. arrinka markaa isku arkay warwarka ayaan waxaan u fariistay buu dhahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa idhahday saliga nabiga ayaa warwarkan kaa kaxaynaye, ilaahayna xaaladaada ku bedelayaay, bal fariiso saacado ayaan meel u fadhiyay buu dhahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan ku wardinaya buu dhahay. alxamdulilah anoo isla meeshii fadhiya ayaa waxa isoo wacay buu dhahay qof aanan garanayn, wuxuuna igu yidhaahday shaqaan kuu hayaaso adiga maaha qofka shaqada raba. waan yaabay buu dhahay, yaa kuu sheegay baan is iri, haddana waxaan yaqiinsaday buu dhahay in ilaahay ii soo diray. xagee joogtaa baan ku iri buu dhahay, meeshii ayuu ii tilmaamay, waa u tegay, wuxuu i dhahay 3 maalin ayaad shaqaynaysaa, 2 saacadood ayaana maalin walba ka shaqaynaysaa, mushaar aan ku farxayna wuu ii sheegay buu dhahay, aan ku qancay. alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala waa naxariis badane, haddaad tala saarato asbaab wanaagsan ugu tagto ilaahay kun fayakun buu kuu dhahayaa buu dhahay. wiilka ilaahay baa mahadda iskale. alxamdulilah buu ku celceliyey. shaqadii waan helay, mushaar fiicanna wuu iisoo dhacay buu yiri wiilkii. maasha allah axbaabi fillah. qisada saddexaad axbaabi fillah gabar baa ka sheekeynaysa. gabadhan waxay tiraahday mushkilad ayaa igu dhacday bay tiri maalin maalmaha ilaahay ka mid ah, aad ayaan u murugooday, aad murugad daran ayaan dareemay bay tiri haysay. maalinkii jamcada ayaana soo gashay, maalinta khamiista ahayd markii dhibtu igu dhacday bay tiri.
جمعادي أيان سلق النبي وبديي أنا دعيست بيتري بعد العصر أيان دعاء أفريست بيتري الحمد لله إلهي أيام هذا إسكاله مالنكي سنين تأرين كيجي إلهي وإيحليي وإلهي حالة ديدو بدل الله أكبر إلهي بما هذا إسكاله إلهي سبحانه وتعالى وحبكم عسلا إلهي سبحانه وتعالى هدا أتكتد إلهي وحير ولا لها قارقة إبري وإذنك أجيبيا وحورة بقى أحواش هذا إن هذا الشيء قلته إله أرنكاس هيستا إلهي سبحانه وتعالى إجابته وكسود الدجنيا ما شاء الله أحبابي في الله قبل وحيسر هذا إلهي سبحانه وتعالى مالك سنين تا أيا أرنتي إسبد شبيتر الحمد لله إلهي أرنكي حليي مشكلة دي لباتدي مركتا دريمي إلهي سبحانه وتعالى يقدر القاضي دعادي قلب كي جمعة أيانا دعاء استبيتري ما شاء الله أحبابي في الله كفائدي استا مالنتي جمعة يعني بديه سلق النبي قاعد مرقي سنتا دا لباتي سنتاي وحول بقى كترتيد هدا فرح سنتاي مرول بعباده يرضى إلهي رالها شهيسا وحول بأنيسو إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى كن فيكون بوكو أورن ريا وحول بوكو علوس وحول بوكو إلهي سبحانه وتعالى مهاجا وإلهي وكو دبريا إلهي ريوين كاغو كورمينيا إلهي وحبل ما أهل بس إلهي وحود هاي إبريا وإذنك أجيبيا إلهي أنتقنا أحباب لا دمانتين نفتيد نفتين وكبورنيا إلهي دعوينك إنها ينو أقبلوا إلهي عبادوينك هاينو فضي إلى آخر ذيني أدونك نبا هاينو فضيو ها إلهي سبحانه وتعالى ينو دبرو أدونك نفرحات آخرنا يتشندي يا إلهي ويدي سنينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا برواقادي رجينيا.